ilaahay baa mahad iskale waxaan halkan maanta ku soo dhaweynay isimo laga soo gaaray gobolka Mudug isimadaas oo u socday arintii nabadeynta ee beelaha walaalaha gobolka Mudug gogosha halkan taal maanta Bursalax taala ma aha gogol cusub waa gogoshii hore u taalay degmada Galdogob oo halkan loo soo wareejiyay maadaama dadkan ay yihiin dad ehela oo deegaan iyo daltoon aan kala lahayn isimada iyo dhaqankuna dhamaantood ay ka dhaxeeyaan waxaan rajaynaynaa maanta gogosha taala inay noqoto gogol nabdeed oo wax kasta oo shidaa oo jiray lagu xalalo laguna dhameeyo odayaashu waxay u taagan yihiin mar kastaba astaan u yihiin nabadgelyada isdhexgalka bulshada iyo dadka walaaleyntooda iyo mar kasta wixii jiro problem inay xaliyaan horumarka laftiisana ay qayb ka qaataan ilaahayna siyaan ugu xamdinaqaynaa sidoo kale dawladdu ayaduna dadaal weyn bay uga jirtaa arrimahan sidii loo dhameyn lahaa oo maaragtay dadkan problemkiisu oo u dhamaan lahaa sid horumarka ka socda deegaamadan ay hore ugu sii taabaqaadaan maadaama haddii aan nabadgelyo la helin aysan maaragtay horumarna jirayn dawladnimana jiraynin sidaas darteed cid kasta oo barnaamijkan qayb ka ah aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa kulley waxaan rajaynayaa inay inoo dambeyn doonaan kulamada dambe oo shirka furitaankiisa ah arrintan waa welcome iyo soo dhaweyn isimada waxaan ku soo dhaweynaynaa deegaankoodii iyo dadkoodii ay qaybta ka ahaayeen aad iyo aad baan maaragtay ugu mahadcelinaya cid kasta oo soo dhaweyntan ka qayb qaadatay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله مهله وحلنا سو dhawaada isimada iyo garadka iyo odayaasha nooga yimid magaalada Galkacyo oo u yimid nabadeynta iyo gogosha taala degmada Bursalax taasoo aan ahayn tii koobaad ee hadda ka hor iyaga laftigoodu ku dhigeen degmada Galdogob oo loo soo wareejiyay degmada Bursalax odayaasha iyo isimadu hordhac weeye dadka intiisii badnaa iyo dhaqankii xaajadan wax ka gali lahaa waxay inoo imaanayaan ilaa iyo berri waxaan leenahay soo dhawaada suldaan maxamed jaamac shire iyo suldaan maxamuud cagmadhiga iyo wafdi ay hogaaminayaan soo dhawaada isimadii kale iyo waxgaradkii kale wayna sugayaan magaaladay joogaan waynu isu tegi doonaa wixii ilaahayna ka garansiiyo iyo wixii tala noqoto ayaynu ka gaari doonaa iyo wixii khayra soo dhawaadaan idin leenahay isimo iyo odayaal haatana waxaan ku wareejinaynaa suldaan maxamed jaamac shire marka horeysa waa mahadsantihiin aad iyo aad bay mahadsantihiin ehelka iyo tolka iyo muslimka iyo qaraabada noo yimid oo naga hor yimid oo soo dhaweeyey aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin walaalayaal waa isku leenahay abtiyaal waa isku leenahay adeeryaal waa isku leenahay wax alla wixii macnaha waxa weeye si aad noo tixgeliseen oo noo soo dhaweyseen baa anaguna idinla qaadanay raallina ka nahay aad baan u mahadsantihiin intaa markaan ka baxo waxaan leeyahay insha allah haddaa la yidhaahdo nabadda allah inoo sugo subxaana wa tacaala nabadda ilaahay baa gacanta ku haya ilaahay nabadda ha inoo sugo dad ehelaan nahay wada dhashay dad walaalaabaynu nahay waa inaynu nabadda macnaha waxa weeye gacmaha ku qabsanaa waa run horumar ma jiro nabad la-aan horumar ma jiro sidaa daraaddeed insha allah haddaa la yidhaahdo hawshaas aynu u guntanno waxaan ku dardaarmahayaa laba qodob waxa weeye qof kastoo innagayna ka mid ah qof kastoo innagayna ka mid ah qalbigiisa islaamnimada iyo walaalnimada iyo dhalashada ku jidho waxa la wixii qabyaalad iyo qurun iyo qashin 1400 sano ka hor baa nabi maxamed calayhi salaatu salaam nooga digay qabyaalad iyo ka fogaada cidii hadda lagu arkaana way ogyihiin diin ahaan inta ku guuleysan mayso marka aynu qaadano kitaabka ilaahay iyo diinta ilaahay nabi maxamed calayhi salaatu salaam sunnadiisa aynu qaadano dadkeena aynu heshiisiino dadkeena aynu macnaha waxa weeye cadaalad qof kasta ina ka mid ah ha u istaago waa run waxa weeye hadda ka hor waan imid degmada waan imid hadda ka hor ayadoo sidaas oo kale gogol u taalaan imid ilaahay subxaana wa tacaalana waa nagu guuleeyey gogoshaas gogol nabadeed bay noqotay waana lagu heshiiyey tanna waxaan ilaahay ka baryahayaa taas oo kale allah inuu iga dhigo subxaana wa tacaala iyadii kale inuu naga tii labaad noqoto lagu guuleysto oo insha allah haddaa la yidhaahdo nabaddu halkaa lagu aslaaxo soomaalidu dhaqan bay u leedahay dhaqankaa ay leedahay aan ka guuro oo ah hawshu markay marayso qof iyo laba iyo saddex markay marayso in wax laga qabto way ku qurux badanta ayagoo mar walba la heshiin doono mar walba waa la heshiin doono marka soomaalidu dhaqanka ay leedahay waxa weeye markay dhammaato oo dhaqaale dhammaado rag dhammaado inay macnaha waxa weeye isku dayo inay heshiiso laakiin sharaftu waxa weeye markay qof iyo laba marayso in la heshiiyo iyadoo la heshiin doono mar walba
oo dhaqaalaha iyo dadka iyo ragga iyo dalgaankaba la ilaaliyo marka insha allah haddaa la yidhahdo hawshaas waxaan rabnaa innaga oo hal reer ah hal jifa innagoo ah awoodda inaynu saaro dadkeennana kala maslaxanno dadkeennana kala ceshanno ilaahayna waa nagu guulaysiinayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu